السلام عليكم وعليكم السلام مسلمين تملك استو adduunka ka joogtiin insha Allah waxaan rajeynayaa bishaan bisheeda bashbashi barwaaqo iyo caafimaad qab inuu nagu gaarsiiyo insha Allah acmaashana Ilaahay naga aqbalo soonka salaada dambigeena iyo dambi waalidkeenba Ilaahay dhaafo insha Allah maanta mawduuceena haddii aan intaas uga soo gudbo insha Allah fadlan asxaabtana waxaan ka codsanayaa insha Allah in ayna dhiirigeliyaan subscribe waa bilaash like commentiguna waa dhiirigelin insha Allah intaasna waa codsi in aad janaalka soo booqatiin sida aad ula socotiin fiidiyoyaasheena insha Allah maanta mawduuceena ay ka hadlayso Faadumo Qurux official waa maxay maanta waxaan ka hadlayaa maalin kasta waan ilmeeyaa maalin kasta waan ooyaa maxaa la ooyaa waxaan daawadaa maalin kasta gabar aroosa oo ninkeeda laga dilay yaa ka dilay askari waxaan daawadaa ilmo yar oo sabi ah oo hooyadiis laga dilay yaa ka dilay askari waxaan daawadaa aaba gablana oo wiilkiisa laga dilay yaa ka dilay askari waxaan daawadaa hooyo gablana oo ooynaysa ama gabadheeda laga dilay ama wiilkeeda laga dilay yaa ka dilay askari waxaan la yaabanahay sababta ee askarta Soomaaliyeed ee dadka u laynayaan 24 hours ee shacabki u daba taagan yihiin shacabka waxaa la dhahay ammaankooda suga ma ahan in ay maalin kasta qoray la daba taagnaadaan ay dilaan wiilasha bajaajlayaasha ha dhihin dadka ummadda xaafadaha maraysa ha dhihin gabdhihii adeega doonanaya ha dhihin dish bahalka adduunka laynooyaba adinka uga daran shacabkiya bismillaahi raxmaani raxiim ilaahow naga qabo askartan dowladdu haddays wax ka qabanayn wixii dadka keensadaan waxaan askar maahan waa dad loo soo diray shacabka in la laayo shacabka reer Muqdisho waa dad loo soo diray in la laayo sabab maalin kasta hooyo ilmo yar oo sabiya wallahi inta gabar aan daawaday aroosada oo dhahaysa ninkeyga bajaaj loo ahaa jaamacadu dhigana waa la dilay maxaa lagu dilay sabab la'aan askariyaa dilay askarta dowladda waxaan ka codsanaynaa insha Allah inay naga qabtaan askarta dadka dhamaynaysa inay naga qabtaan maanta geerida ka adiga ka maqan walaalka ay ku maqan tahay maanta hadaysa adiga kugu dhacay walaalka ay ku maqan tahay walaasha ay ku maqan tahay maatada la leynayaa waxa la leynayaa waa hooyooyin waxa la leynayaa waa aabe Soomaaliyeed waxa la leynayaa waa wiil Soomaaliyeed waxa la leynayaa wax kale ma ahan waa askartoodii ay gabaadsanayeen ee isdhahaan ayaga maanta wadankiina idin difaacay wadan kuwaas ma difaacayna wadankeeba nag ka siiyaan yaa xagee uga dabiinana war umada ka leexda hadilinine askartan horta dowladana baan ugu la yaabay warniyo dowladan ha loo sheego inay naga askartan dadka ka celiso maalin kasta hooyo ilmeynaysa hooyo maalin kasta barooranaysa ilmo yar oo saqiir ah maalin kasta waalidkiis la dilay nolol maahan xayaatana maahan inay askarta Soomaaliyeed ciidanka dharka u soo gashteen inay shacabkooda laayaan ma ahan inay dharka u soo gashteen inay shacabkooda laayaan dharka waxay u soo gashteen inay wadankooda difaacaan inay dhibaatadii wadankooda ku soo wajahan ilaaliyaan laakiin maalin kasta hooyo Soomaaliyeed oo isa maalin kasta aaba Soomaaliyeed oo maalin kasta gabar Soomaaliyeed aroos oo isa maalin kasta ilmo sabiya oo hooyadiis ama aabiis la dilay yacni sabab gabar maanta waxaan daawanay dhahaysay xataa ma doono karna adeeg askarti يعني قبليه قشقشاده ku sameynayaan marka waxaan rajeynayaa askarta Soomaaliyeed inay xishoodaan shacabka ka xishoodaan waxay u taagan yihiin waa shacabka inay shacabkooda tixgeliyaan ma ahan shacabkooda inay cadawgii koowaad ku noqdaan oo mid walba oo cabsada askariya ku dalakii bajaajlaha oo cabsada kii suuqa aaday oo cabsada tii adeeg dooranaysa ee cabsada tii wax yar gadanaysay ee cabsato dhahda askariya ku dilay بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ونقبض بعد بلاي هدو إلهي نجحر بلاي كلا يرد وصفرت بسم الله الرحمن الرحيم الدون كبالك كلا حرابة وأسكرتها صومالي وقدرن أنا وأسكرتها صابي يقصوا بود وبيقصوا بودين بقى والله ويقصوا بودين بإله أمتك قبو وحن مدحوينها يرسلوا سعرها وحن قعصنا يا أسكرت ضد كلا ينسى إن تيرك الاستاديو اللي دلو كي دل بقى أنت تقرت دريس كان يقرأ عن حاله وجديبي waxaa lagugu dhiibay in aad shacabkaada ku ilaalisid ma ahan in aad shacabkaada ku dhameysid in aad wadankaada ku difaacdid qoraga laguguma dhiibin adreeska dharkuma aad gashan in aad shacabka ku leysid askarta Soomaaliyeed waxa ka qaldan anigu ma fahmi karo ilaa haddana qalbigayga ma fahmin maalin kasta hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda la dilaa
maalin kasta waxaa la dilaa aaba Soomaaliyeed ilmihiisa, maalin kasta waxaa la dilaa gabar Soomaaliyeed ninkeeda ama nin Soomaaliyeed gabadhiisa. sababtaas anigu ma fahmin. marka fadlan waxaan ka codsanayaa dowladeena in ay la hadasho askarta ama mushaaraad fiican siiyaan. kolley askartan anigu ma fahmin dadka laynaysa, yacni sababta ay dadka u laynayso oo bilaa macno la-aanta ay dadka u laynayso ma ahan. dadku xayawaan, dadku waa bini aadan. qof aa usoo dirsatay adeeg ama qof kuu shaqo tagay ee lagu dhaho waa meyd, waa calool xumo. adduunka cudurka socdaaba cuduraaba ku noqoteenbe, shacabkiiaba cudur ku noqoteenbe. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahu wadankeena dhibaatada nooga dulqaad. wallaahi waan la qiirooday fiideogaas markaan arkay, waan qiirooday saraaxa. hooyada ilmeynaysa maalin kasta inay hooyo ilmeysa Soomaaliyeed waa qalad. marka Soomaalida insha Allah waxaan rajeynayaa wiilasha Soomaalida oo askarta in ay shacabkooda ammaan siiyaan ee nabad geliyaan aan rajeynayaa insha Allah. asxaabe fiideogeena halkaas nooga eegaya insha Allah. asxaabtan waxaan rajeynayaa inayna soo booqdaan janaalka waa janaalkeeni. subscribe tan hanaga ilaawinin, like comment tiguna waa dhiirigelin insha Allah. asxaabe sidaas iyo nabadgelyo. diina kama rabo, daawana kama rabo, duugna kama rabo, in la idil la rabo aniga. Faadumo waa hooyada dhashay Madiina Cabdulaahi oo xalay uu ku dilay askari kamid ah ciidamada booliiska Soomaaliya magaalada Muqdisho. waxayna dhabta ku haysaa gabar yar oo dhalnayd 29 maalin oo ay Madiina ka dhimatay. xaalada gurigan ka jirto waa mid murugo leh, iyadoo isla gurigan uu askari uu ku dilay wiil dhalinyaro ah xilli ay hor fadhiyeen gurigooda. waxaana hadda ka jira gurigan 2 tacsiyadood oo murugo badan ku reebaysa qof walba oo halkan ku sugan. xaalay waxay wax u dhaceen nimanka markay soo galeen alaabtan aruursan gurigan gashan. alaabtii raashinka korseynaya wasaq ah inay gabadha aruurinaysan gurigan ku jiray. wiil iyo nin isku soo daba ordeen xabadayaal soo reeyay khaylna waa yeertay. xabada markay dhaceen maxaa dhacayna kasi yeertay markay yeertiyaan banaanka soo baxay. gabartayga goobyaal aheedba hooy maxaa kugu dhacayaan hal mar la afkaa tiri mar dambe dhinayo. ninkii askarigan kusoo duubsanay askarigan keen waa la isku yimid xabadii dhiigga la fiiri hore laga qaaday. jidka intay socotoba hore ku dhimatay. waxaan codsanaa ninkaas inaa awaal marin ina laga keeno micnaha inuu ninkaas gabartaysa u dil loo dilo. wax kale oo aga baahan jirtaan. Farxiye Cali waxa ay la dhalatay Xasan Cali oo ah wiilka dhalinyarada ah ee la dilay. goobjoog ayayna ahayd xilligii uu dilka dhacayay. abaari oo Afrika ahayd oo soo afray iskuus baraanka u tagay waa soo naqay meesha markuu soo maraayo cabada lagu dhiftay. aniga meeshaas aan fadhiyay gabar oo ayadana dilsaan hayo ayadana alaab soo qaadayso soo baxayso xabada asaa lagu dhiftay. xabada asiga ka baxda gabadha dishay labadooda isku maartay. adiga 20 jir oo ah nin waay. ciidankii asi marka murun ma ka dhaxday? maya waxba ma marka ma dhaxba. xarooda al soo xarooso soo baxayne waa laga soo dibaxay xabada. waxaa codsahayaa ninkii walaalkay dilay oo gacan ku dhiglahay inaa geedka la geeyo oo tiirka la geeyo. codsaa na karantiileen ay ilmahayna guriyeen inoogu imaadeen la dilaayo ma kuma dul qaadan karna taas. farmaajane filinka waa ku daatay iskaga baxo magaalada haddii kale taasoo lugaha ka baxaa. dilkan loo geystay labadan qof ee shacabka ah waxaa ka dhashay caro xoog badan oo galgashay dhammaan magaalada Muqdisho xalay ilaa maanta, ayadoo dad badan ay isugu soo baxeen wadooyinka iyo fagaarayaasha ku yaala degmada Boondheer oo ah meesha uu dilku ka dhacay. waxayna dadka badankood dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno cidii ka dambeysay falkani. madaxweynaha farmaajo oo dadka soo amray iyo Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay adeerka in loo xaq dhacsho cadaalad jirto in loo xaq dhacsho adeerkay Xasan Cali